أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، maanta waxaan baranaynaa maaragtay kelimadii hore usoo baranay, weli continue way socotaa. lesson code oo maaragtay qaybtiisa labaad waxay ka hadlaysaa hada. waxay kala duwan yihiin just maaragtay kala duwan yihiin kelimadaha ama verbka aan baranayno. so maadaama isku mid yihiin, maanta inaan soo wada dhigaan isku daya insha allah, ama isku soo qabta ama kala goon u soo dhigo. laakiin webka wax ka barano ah Madina Arabic, kala meel oo ka dhigay number 1 and number 2 for some reason. might be kelimadaha badan oo space ka rano wada is maaragtay. anyway, YouTube ka digla soo xiriir kartaa haddaa su'aal qabtin maaragtay. logo yara 1 waa laga helaa, waa ku soo qori doona insha allah. Facebookna tafsiirka quraanka ayaa la soo xiriir kartaa. هذا مفتاح. هذا مفتاح كان فرو. This is a key. English كنا أول وبرن كرا هذا لك عربية معرفتي. هذا كرسي. هذا كرسي كان كرسي. هذا وحير تلمامه ماشيان ألف يربا قرن because saas baa loo qoraa. hada waa kor dhaban tahay, xarakadaan usoo qaadanay. haa baa leedahay, maxaa alif igu taagi weysa waad is leedahay magta. for some reason san baa loo qoraa hada, alif laguma taago. alifka iriska halkaaba lagu qoraa, ama waa ka tegi kartaa qofku fahmaya hada baa laga wadaa. akhriska badan iyo maaragtay exerciseka waxyaalo badan buu ku baraya maaragtay. xataa hadhowda waxaan ka tegi doonaa shaqalka maaragtay, waa fahmaysaa maaragtay, xarakada waa ka fahmay, waa ka tegi karnaa. okay. هذا قلم. هذا قلم. ها كردبان، ذال كردبان، قلم. I think هذا هو مبين إن حركة الشكل وبراتي كان قلن. هذا مكتب. هذا مكتب كان ميس. هذا سرير. هذا سرير كان سرير. easy سهل سما. just memorize waxa lagu dhaho af Soomaaliga sidaas baa lagu dhahaa. kursi baa lagu dhahaa, qalin baa lagu dhahaa, magaalada sariir baa lagu dhahaa. waa af Soomaaliga oo kale maaragtay. waagii hore xataa taariikhda af Soomaaliga Carabiga kale loo qori jiray, then qolooyinkana Latin u bedeleen wastiga. anyway, that's taariikh waa another subject oo maaragtay. intaasaan uga baxayaa casharkeena maanta. waxaa baynaan ka faa'iidaysanay. wabillahi tawfiiq. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.